hanaanka dimuqraadiyadeed ee ka hirgalay Soomaaliland sanadkan 2010 wuxuu ahaa mid xusuus mudan. marka hoos loo eego 3 sano ee la soo dhaafay oo jireen murano siyaasadeed oo khalkhal geliyay xasilloonida dalka, dhacdooyinkii 2010 waxay leeyihiin macno ballaaran oo gaar u ah bulshada Soomaaliland. kadib murano xasaasi ah oo u dhaxeeyay 3 xisbi qaran, waxa bishii Abriil guddiga doorashooyinku ku dhawaaqeen liiskii codbixiyayaasha. saddexdii bishii Juun ilaa iyo 24keedii waxa dalka ka hirgalay ololihii doorashooyinka oo aad u xiiso badnaa, kaasoo noociisa dalka hore aan loogu arag. ayadoo ay ku beegneed maalintii ay Soomaaliland xurnimadeeda ka qaadatay dawladda Ingiriiska 50 sano ka hor, ayay 26kii Juun noqotay maalin taariikhi ah oo ay Soomaaliland ku guulaysato inay qabsato doorashadii labaad ee madaxtooyada. isla 7 maalmood gudahood waxa guddiga doorashooyinka qaranka ku guulaystay inay ku dhawaaqaan natiijadii doorashooyinka. madaxweyne Daahir Riyaale ayaa isla markiiba aqbalay natiijadii doorashooyinka una hambaliyeeyay madaxweynihii ku guulaystay doorashada. arrinkaasoo dhab ahaantii hoos u dhigay cabsidii laga qabay khalkhal ku yimaada xil wareejinta. waxaan ilaahay ugu dhaartay in aan u noqonayo daacad diinta islaamka. kasakoo guulahan istaba joogga ahaa ee Soomaaliland u soo hoyday sanadkan 2010, waxaa hanaanka dimuqraadiyadeed iyo weliba xasilloonida dalka hor yaalla caqabado fara badan. dareenka dadweynaha iyo waayo-aragnimada qutada dheer ee akaademigu ka dhaxlay marxaladda kala guurka siyaasadeed ee dalka ayaa tilmaamaysa in dimuqraadiyad taabagala ay ahmiyad weyn u leedahay xasilloonida Soomaaliland. filimkan iyo nuqulka qoraalka ee uu ku salaysan yahay waa midhihii ka soo baxay wada tashiyo laga sameeyey kolon kooxeedyo oo laga fuliyey dhammaan dalka. kulamadan ijtimaaciga ayaa waxaa fuliyey koox cilmi baadhayaal oo ka socda akaademiga nabadda iyo horumarka bilihii u dhaxeeyey Juun iyo Juulaay ee sanadkii 2009 iyo January iyo February ee sanadkan 2010. waqtigii xog ururinta lagu guda jiray oo lagu soo wareegay dhammaan 6 gobol ee dalka, waxaa la fuliyey kulamo istaba joog ah iyo waraysiyo lala yeeshay kooxo iyo shakhsiyaad metelaya dowladda dhexe, heer gobol ilaa iyo heer degmaba. sidoo kale waxaa la waraystay daneeyayaal ka kala socda dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada, iyagoo aragtiyahooda kala duwan ka dhiibanayay danahooda iyo wadciga taagan. dadaallo gaara ayaa la sameeyey si loo helo aragtiyaha haweenka, dhallinyarada, dadyooga la haybsooco iyo kuwa naafada ahba. marka loo eego innagoo yar oo ummad yar oo la aqoonsana oo magaranaysaa waddan kale oo waxaan wuxla lahayn ka soo go'nay oo muddo yar jiray oo wax barbaarinay oo layno aqoonsan oo beela kolkooda kala fiirsanaa la heshiisiiyey oo system yar la dhistay oo wax la waday oo doorashooyin la qabtay dimuqraadiyadda. aragtidan iyo weliba doorashadii madaxtooyada ee dhowaan ka dhacday dalka isla mar ahaantaana noqotay tii ugu horreysay ee 2 madaxweyne oo bulshadu soo dooratay ay xilka kula kala wareegaan ayaa tilmaan u ah dimuqraadiyadda ka jirta jamhuuriyadda Soomaaliland. dawlad baa inoo dhisan, calan baynu leenahay, adeegii nabadgelyadaanu ka helaa, tii bulshadaanu ka helaa, caafimaadkii baanu ka helaa, waanu fadhinaa, ardaydadeedaba jaamacada noo dhigata, waanu shaqaynaa, way jirtaa dimuqraadiyadda. xisbiyadu inooma yimaadaan haddaan dimuqraadi jirin.
labadii sannadood ee ka horreeyay doorashada ayay xaaladda siyaasadeed ahayd mid murugsan taasoo u dhexaysa hogaamiyaasha siyaasiyiinta dad badan waxay aaminsan yihiin in dhacdooyinkii labadan sannadood ay yihiin kuwo ka turjumaya isla markaana sawir ka bixinaya heerka dhabta ah ee hanaanka dimuqraadiyadeed ee Somaliland ka tisqaaday sababtu waxay tahay in hanaanka doorashada oo sida caadiga ah dimuqraadiyadda bartilmaameed u ah ayaa Somaliland ku noqday caqabad daba furan horta dimuqraadiyadan aynu sheegayno dawaa baynaan fahansaneen qofkuna haddii wixii la yidhi qaado ee tuurta laynoo saaray aynaan garanaynin sidaynu doonaynu soconayna horta waxa wanaagsan intaynaan odhan dimuqraadiyad baanu qaadano dimuqraadi baanuna inaynu horta fahanno waxaynu ku noqonaynin dad badan ayaa aaminsan in qaab dhismeedka qabaa'ilku uu yahay nidaam saameyn wanaagsan ku lahaa yegleelidii dalka wuxuu inooga shaqeeyay colaado badan oo ina soo maray ayuu soo afjaray nidaamka qabaliga ahi oo aan jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo aanay soo afjarin ayuu soo afjaray oo ilaa 7 dagaal oo dhacay waxa weeyaan waxa aynu ku soo afgoynay nidaam qabaliga ilaa iyo intaynu abuurnay ilaahay dadka nagu abuuray qabiili baynu nahay geed baynu lahayn xeer baynu lahayn waxbayna ma jirin waxaanaadi wax naga xumaada ma aani jirin waa isdili jiray waa heshin jiray dimuqraadiyin anama heshin jirin waa dimuqraadi ilaa nama heshin jirin si kastaba ha ahaatee qabyaaladda ayaa curyaaminaysa hanaankii kala guuree nidaamkii ku salaysnaa qabiilka iyo sidoo kale nidaamka axsaabta badan iyadoo ay marar badan khatar geliso sii jiritaanka nabadda iyo xasiloonida laba waxaan isqabanin marna dimuqraadiyadda qabiilka isma qabtaan waa laba isku jir marka had iyo jeer waxa jirta had iyo jeer inuu waxaan priority ku haysto qabiilkii baa deegaanada dhaadhacsan oo reer guuraama nahayo reer hebel iyo maxaa annaga sida maxaa loo yeeli waayay taa marka leeyahay dimuqraadiyadda way ka hormaraysaa arrinkan iyo qaar kaleba waxay marar badan shaaca ka qaadeen nuglaanshaha hogaamiyaasha siyaasadeed ee dalka iyo sidoo kale hay-adaha dowladda haddana waxaad moodaa weli systemkan hadda la qaatay dimuqraadiyaddu inuu taas caqabad ku tahay oo odaygii weli talinayo hal system baan inaga weligood noo jira dad imka xitaa dawladdeena iyo wasaaradda arrimaha gudaha waxa ogtay dawladdu waxa weeye nidaamkii mustacmaraadka waxa weeye dawladdu waxay dadka la xidhisaa xuqaasha nimankan waxa uu gawaamaya anigu ma garan haddaynu qabiili nahay maxaynu u dooran weynay siinay ee aynu u dooranaynaa ina fiican qabyaalad maynu naqaan acuudu billaahi min ashaytaan rajiim sawtaad arkaysa ma afarta baynu jalaaynu kala caranay ninka fadhiya oo raacayna sha waxaanu isku dilaynaa wuxuu dooranayaa inaan riyaale kitaasaan dimuqraadiyadda ahayn waarta dimuqraadiyadda ayabaa kaga dhicin shaqadu waa shaqo wanaagsan si wanaagsan baynu waxu wadnaa yaynaan degdegin inkastoo samirku ahamiyad weyn u leeyahay horumarka iyo dibudhaska dalka haddana meel ugama bannaana in laga seexdo hanaanka doorashooyinka Somaliland maadaama hawl badani harsan tahay xaggan dadweynaha waxaad moodaa in wax badani ay ka dhiman yihiin oo aqoon la'aan badan inaga hayso doorashooyinka iyo nidaamka wax loo doorto doorashadii dhowaan dhacday waxay ka mid tahay mareegto istaba jooga oo ay ka mid tahay doorashada golayaasha deegaanka oo imika muddo dhaaftay 3 sannadood adduunyada dadka hore u maray ee lacagta haysta 3 electionba way israaciyaan 6 months later baa le baarlamaan baa la gelaya municipality-gina waa dhacsantay inuu la gelaya kii imika madaxtooyada imika 6 Juun la leeyahay waxaan ma way isburinayaan diiwaangelintii codbixiyaasha ayaa door weyn ka ciyaartay doorashadii madaxtooyada balse murankii ku salaysnaa arrintan sugnaanteeda iyo habboonaanteeda ayaa laga cabsi qabaa inuu dib u bilaabmo intaan la gaadhin doorashooyinka soo socda marka horeba arrintaas arrin khaldan oo aynu qaadanay bay ahayd arrin intaynu isaga wada nimaadno aada uga doodno oo ka wada hadallo oo rag iyo dumar iyo waxgaradba aynu arrintaa dee ka tashanay ahayd waynu wada joognay dadka maxaa la lahaa sanduuq baa halkaa la dhigay ordo ka soo codeeya miyaa la codeynayay qofku kaadh buu soo qaadanayay waxaa la waa ID card soo qaadashadii dhaweydna wixii ka dhacay waynu garanaynaa iyo baabuurta mikrofoonada loo kireeyey just tolaayay bay ahayd waa eesha dimuqraadiya waa maxay dimuqraadiyadda aynu ka sheekeynayna markaa tirokoob lagu kalsoon yahay
kala xadayn la-aanta meelaha laga soo doorto mudanayaasha iyo la-aanta aqoonsi rasmiya ayaa ah qaar ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee is-hortaagi karaa inuu qabsoomo diiwaangelin codbixiye oo lagu wada qanci karo guud ahaan somalilan. dhammaan waddamada caalamka ayuu dastuurku u yahay marjaca ugu muhiimsan ee si dhammaystiran uga shaqeeya xalinta muranada ku salaysan qabashada doorasho xor iyo xalaala oo sharci ah. inkastoo dastuurka somalilan uu tilmaamayo xorriyadda iyo xuquuqda asaasiga ee qabashada doorashooyin nidaamka axsaabta badan oo xor iyo xalaala, haddana wuxuu mararka qaar caqabad ku yahay hanaanka doorashada. dastuurkii 1997 la qaatay dastuurka waxaa samaysata dowladu dad ishayaa dastuur ma wada samaysan karaan iyo inagoo isriixayna oo dee waxa weeyaan waa la wada ogaa hargeysaa lagu shirayey official unionkii hargeysay ahayd 330 ergey baa la ahaa, yacni wixii ka jiray waa la wada garanayaa 157 article oo dastuur ka kooban